markay duubaysa isla joogna labada cunug iyo adig bismillahi raxmaani raxiim waxaan rabaa maanta inaan ka hadlo caruurtii yaryarayd beryahan social mediaha la dhex waday caruurta hooyadii dhashay iyo dadkii qaraabada ama deriska ahaa ee la joogay ay siiyeen shiishadda kadibna ay ka duubeen shiishadii carruurtii oo cabbaysa ay ka duubeen runtii waa arrin la yaab leh arrinta aad baa looga hadlay soomaaliduna saad ogtihiinba waa dad dhibaato xoogaa waxyaabo badan oo khaladaad bay sameeyaan oo aad u fara badan bay sameeyaan laakiin haddana arrimaha noocan oo kale ee akhlaaqda dilaya ee haddana bannaanka la soo dhiganaya ee carruurta yarayd da'da yaryar ku jirtay ee mustaqbalka ummadda soomaaliyeed ahayd oo ninku munaafacaadi aan la garanaynin in dhaqankii laga hadleeyo in shiishad la siiyo in sigaar la siiyo in qaad la siiyo in waxyaabo daraagisa intii la siiyo ilmihii la kharibo oo dhaqankii laga hadleeyo taas canugii yaraa iyo ilmihii sidaa loo galay horta dhaqankoodii waxay hadlaynaysaa mustaqbalkoodii ayay dilaysaa waxaa kaloo dilaysaa ummadda soomaaliyeed sumcaddeedii dhexdeeda ayada ay isku lahayd iyo karaamadeedii bay dilaysaa ummadda kale iyo mujtamacyada kale waxay ka aaminsanayaan ummadda soomaaliyeed oo ummad muslim ah oo dhaqan suuban leh oo dhaqan islaam leh ayadana waxay siinaysaa fariin xun ayay u gudbinaysaa ilan social mediaha waa la wada isticmaalaa soomaali keli ama isticmaasho carab baa isticmaasha gaalaa isticmaasha muslim baa isticmaala hayr baa isticmaala waxay u gudbinaysaa ummaddii soomaaliyeed ee lagu yaqaanay ilmahooda inay xaafidulqur'aan yihiin qur'aanka kariimka inay xifdisan yihiin inay khayrka ku dadaalaan inay masaajidada dhisaan inay asturan yihiin gabdhahoodu ayaa waxay u gudbinaysaa tarbiya xun canug yar iyo laba canug oo yaryar oon 6 jir 5 jir ka badnayn inay maanta la siiyo shiishad oo ay ku dhex cabbaan adduunka korkiisa meel lagu arko youtubekii lagu dhex siiyo social mediahii la soo geliyo adduunka korkiisa meel lagu arkay ma jirto xataa dadka social mediaha abuurtay sida hadda tiktok oo kale youtubeka oo kale waxyaabo ay la dagaalamaan baa jirta ilmaha yarka ah akhlaaqiyaadkooda in la dilo iyo waxyaabaha noocaas oo kale ah ma ay ogolo oo islamarkaaba inay kaa xidhaan baa laga yaabaa xataa aaleedkii ay kaa xidhaan laakiin waxaa baryahan dambe aad u badatay dhaqan xumida ka imanaysa weliban xagga hooyooyinka ka imanaysa waxaa laga yaabaa hooyooyinkaasi ama masayr inuu ku dhacay ama roggoodii inay isku dhaceen ilmihiina ayagu ay gacanta ku hayaan ayagiina ay balwood bartaan baa laga yaabaa dumarkiinni maanta inta badan balwoodii baa badatay qaadkii bay cunayaan sigaarkii bay cabbayaan shiishadii bay cabbayaan khamridii bay qaarkood isticmaalayaan dumar badan oo soomaaliyeed baa maanta fasahaaday oo nolosha ka dhacay dumarku sidoodabana waa naaqisaatul caqli oo haddii ay fasahaadaan ama ay hallaabaan oo waxyaabaha ay bartaan ma qarsan karaan sida raggu ay u qarsadaan waan ognahay boqolkiiba waxaa aad uga badan 90 iyo wax la jira ragga ayaa ku badan inay daraagiska iyo waxyaabaha noocan ay isticmaalaan gabdhaha way ku yar yihiin laakiin raggu waxay leeyihiin awood iyo karti ay wixii ku qarsan karaan social mediana ayna la iman karin lana ogaanin isagoo wixii isticmaala oo waxyaabaha maaragtay dee munkar markaad samaynayso inaad qarsato iyo in aad bannaanka soo dhigato waxaa ka dembi badan inaad bannaanka soo dhigato waxaa dembi yar inaad qarsato ayaa dembi yar laakiin dumarku fikraddii iyo caqliyaadkii iyo xikmaddii faraha badnayd ay raggu adeegsanayaan ay qarin tahay ma yaqaanaan gabadhu hadday damacdo maanta inay beerta gasho waad ila fahmaysaan baan u malaynayaa oo macnaha jirkeeda inay xumaan iyo wax soo bandhigto ma qarin karto laakiin ninku waxaa laga yaabaa inuu qariyo hadday damacdo inay sigaar cabto bannaankay ku cabbi maalinka dambe la dhowr barmi markay guriga ku cabto way iska duubaysaa markaase waxay soo gelinaysaa social media ay soo gelinaysaa shiishadii hadday damacdo inay cabto saas oo kale qaadkii hadday cunto saas oo kale in badan waxaad aragteen wixii oo dhex yaacaya dhulkii haddaba maanta waxaa dhacay hooyo ilmaheedii shiishad intay siisay labadeedii canug laga duubay waa la soo qabtay ummadda soomaaliyeed baa kacday waa la dhawaaqay waa laga xumaaday damiirkii baa keeni waaya ilmihii mustaqbalka ummadda soomaaliyeed ahaa inay maanta shiishad ay ku dhex cabayaan social mediaha oo laga aamuso oo la fiirsado damiirku wuu keeni waayey way dhawaaqday ummaddii soomaaliyeed waa la raadiyey waa la soo helay bal ila daawo markay duubaysa isla joogna labada cunug iyo adiga iyo yahya intaas isu joogin waad ila daawatay waadna igala bogatay hooyadani mar waxay leedahay aniga oo hurdo ayaa ilmahan waxaan laga duubay social mediaha la geeyey bay leedahay waa hadal ay saa u dhigayso waa hadal qurux badan hadday run noqon lahayd laakiin haddana mar kale waxay leedahay gabadhan waxaan ku dhahay ka duubaysay iyo wiilkan ka duubayay ilmaha intay shiishada siiyeen waxaan ku dhahay hayga gelinina social mediaha
ma ogoli ilmahayga oo waxaan cabayo inay dadku arkaan. halkaa waxay ku tusinaysaa ilmaha raalli bay ka ahayd, wayna ogeyd inay bahladan cabayaan, laakiin keliya waxay diidanayd in social mediaha laga geeyo. bal ila dhegeyso marka ay sidaa leedahay ee dambe. waad aragtay. haddana mar kale waxay leedahay shiishadahan iyo bahladan shiishadaha lagu cabe ee aragtaan ee dheerdheer ee meesha yaalla iyo beebabkooda, mid anaa iskale midna kor baa lagala yimid bay leedahay. waxay qiratay inay iyadu leedahay oo gurigeeda ku dhex isticmaasho ayay qiratay. ilmaheedana marnaba ma diidana inay waxaan la cabaan, iyaduna waxba uma aragto, laakiin keliya waxay iska difaacaysaa uun social mediaha geynta la geeyey inayna ka warhaynin. booliis baa waraysanaya, booliisna saa taqaanaa waad garanaysaan, waa dambi baaris, wax walba way soo saaraan. hadalkeedii isla markii la waraystaba waxaa ka soo dhex baxday waxanay wax ka ogey. kolka horena way inkirtay. waa wax lala yaabo runtii. xaqiiqatan mustaqbalka ilmahaagii adigoo aad dhashay, wiilkaagii, gabadhaadii adigoo aad dhashay, inaad mustaqbalkooda intaad hadlayso bannaanka soo dhigto, aad dadkii ummaddii usoo bandhigto oo social media oo intaasoo bilyan daawanayso aad usoo bandhigto, waa wax lala yaabo. waxaad ogaataan gabadhu waxay u labisataa ama ay isu ekaysisaa hooyadeed. wiilku markuu labisanayo wuxuu u labistaa sida aabbihiibu u labistaa. waxay ku daydaan mar walba hooyadood iyo aabbahood bay ku kala daydaan, maadaama oo qoloba qolada kale ku labis tahay. hadday wax cabbaan, wiilku wuxuu mar walba ku fikiraa aabbihii wuxuu isticmaala. hadduu qaad cuno, hadduu sigaar cabo, hadduu waxa uu aabbihii isticmaalo, mar walba wuxuu u yahay wax qaali ah, wuu ku daydaa. hooyadana gabadhu saasoo kale weeye. wax kastoo ay samaysato ayay ku fikirtaa inay samayso markay weynaato. matalan hooyadeed hadday niman guryaha keensato oy maalinba nin wadato, gabadhu waxay ku fikirtaa waxa hooyadaa samaynaysa waa wax fiicane, markaad weynaato adiguna san oo kale samee. gabadhu mar walba hooyadeed bay ku dayataa. miyayna dhaqan xumi ahayn wiilashaadii iyo gabdhahaagii labadiiba ood adigu gacanta ku haysay shiishad inaad siiso ood ku hor cabto oo adiga saaxiibadaa ku hor cabtaan, ayagiina aad barto, kadibna aad social media intaad ka duubto social media soo geliso? mustaqbal xumi ka badan miyaa jirta? waa maya. haddaba waxaan leeyahay hooyooyinow, beryahan waxaa dhacday hooyooyin iyo aabbayow, ilmihii waa la wada xajisan laayahay, waa la isfahmi laayahay, waa la kala tegayaa, guri walbay ka jirtaa. ilmaa meesha imanaya. markay ilmihii meesha imaadaan, hooye inta badan ayaa ku dhegta oo aabbihii dhinaca ku qabsata, u diidda saynu ka warhayna inta badan. aabbana wuxuu is yidhaahdaa hooye hadday ilmihii kugu qabsatay, siday u korin karta uma korin kartid. waxyaabo badan baa laga yaabaa isagoo xeerinaya ama waxyaabo badan la fiirinayo ayaa hooye loo dhiibaa ilmihii. laakiin hooyooyin badani ilmihii way halleeyeen, ilmihii meelxun bay ku tuureen. hooyooyin badanina ilmihii kor bay u qaadeen, noloshoodii, waxbarashadoodii, korintoodii, dhinac walba akhlaaqiyaadkoodii, wax walba kor bay hay ka dhigeen. laakiin hooyooyin kale dhanka kale daraagis, balaayo, waxay baratay waxyaaba xunxun bay baratay, kadibna ilmaheedii ayay u gudbisay. hooyana hadday wax barato, xaqiiqatan waxaa ah ilmaheeda kama difaaci karto inta badan, oo ilmaheedii kol walba way u soo bandhigaysaa. sababta keenaysana waxa weeyaan hooyadu waa qof daciif ah. mar walba qofka dumarkii waa qof daciif ah. hooye waa qof dumara, qofka dumarkiina waa daciif. wax badan oo aabbuhu maskax ku kala kaxeeyo oo ku kala celiyo ayadu kuma kala celin karto. shiishad hadday barato, khamri hadday barato, sigaar hadday barato, qaad hadday barato jirkii oo laga ganacsado, intaba ilmihii bay dhex keenaysaa. waxaa ilmihiina halkii bay kaga qaadanayaan. haddaba waxaan leenahay hooyooyinow, waan dhimanayaa ama waan baahanahay, bakti looma cuna bay soomaalidu ku mahmahaane. hadday xataa dhibaatooyin idinla soo gudboonaadaan, ilmihiinna mustaqbalkooda ha dilina, sharaftooda ha dilina. social mediahan iyo taleefanadan waaweyn aad haysataan, caqli aad ku taxakumtaan oo weyn waad heli kartaane raadiya. ha ka duubina ilmihiinna. hadday guriga kula joogaanna waxan ka ilaali oo ka daa, oo daraagiskan iyo waxyaabahan ilmahaaga ka jooji. aniga dardaaranka aan idiin jeedinayo waa midaas.